Soomaaliya waxaa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashilay United Nations ka dambow waxaa la soo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabinna iska daay laakiin waan idin leeyahay waxaa qaraar oo asaasi ah Soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqo stage number 1 ummada Soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horeysa wax alla wixii diin ku leh inay kor u soo kacaan madharka islaamiga aan la baabiyo waa asaaska hadafka ugu horeeya stage-ka koowaad waa kaawi laguna baabiyo nimanka laadiiniyiinta ee maasuuniyiinta ee mustashriqiinta ee afka Soomaaliyeed ku hadla gaala taageerada la yiraahdo in lagu baabiyo gacantooda hadday fuli waayaan gacanta in lagu baabiyo gaalada stage-ka labaad waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya la yiraahdo in loo qaybiyo marka hore to manaadiq in loo qaybso rijin in loo qaybiyo marka ugu horeysa oo aanan automatically marka hore laga dhiginin state kamida Ethiopia in laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo stages in laga dhigo rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin gobornada in loo sameeyo oo ra'iisul qabiilada oo laadiiniye in loo sameeyo arinta ayada markii la sameeyo inay ku qancaan oo loo tamhiidiyo nimanka laadiiniyiinta ee maasuuniyiinta ee mustashriqiinta ee ru'asaa'il qabaa'il ah ee looga kaaftoomay kaaba qabiilkii hore waa la casilay iminka ogaada gaaladu way casileen kaaba qabiilkii hore way casileen markay soo baxeen nimankay tarbiyeynayeen kolkay soo baxeen nimankay tarbiyeynayeen ayaa maanta kaaba qabiiladii la dhaqmay waa kaaba qabiilo waaweyn iyo kaaba qabiilo hoose weyn ogaada taa goboladaas marka nimanka joogay Soomaalida ee iminka dadku ay yaqaaniin warlordska waxa lagu qanacsi oo nin walba oo fermay oo laga qaado laga xaqiijiyo inaanu waxba ka qabanin dawladda Itoobiya inaanu waxba ka qabanin ku hoos noolaadkeeda inuu ku hoos noolaado inaanu waxba ka qabanin si loo buruufata وين شرر لوجو يرى ويرد سبب يمادان أفر لواتن كساع أم حرنا معمولا ولي بدرجة هو صو كنا سينو معمول مجا على دولة الصومال إلا بابيه مقبرة قانون كيونيتد نيشن كقري معي دولة سيدة أسمى سناي إن احتلال كلا تلقوا سمايو أو لقى بابيه أو لقى سارو استيت كياها إن تهاي international government إن تهاي إن لقى سارو قري معي وين stages kala tala marsiya oo loo tamhiidiya sidii horeyba loogu aqoonsaday loo tamhiidiya marka hore oo gadaal regression lagu sameeyaa systemkii oo ah in marka hore to stages laga dhigo oo loo proof international community-ga dadkaani inaanay ahayn dawlad inaanay ahayn ay regions kaasna ay xaq u leeyihiin region walba qoladii ka talisaa inay meeshii doonto kula biiri karto stage kaas waa stage ka maanta ay ku sugan tahay Soomaaliya stage ka labaad waxa weey in la yiraahdo all waxa weeyaan Soomaaliya under Ethiopia wayna ahaataa qayb kamida Ethiopia weeye central ku waa Ethiopia weeye ayaguna waa region weeye governors marka dambe ta looga taliyo ardaysa waa inay noqdaan yaa diidaya marka waxa diidi lahaa qadiyada ninkii mutacallimihi toosan ninka wadaadka ah toosan shacbiga toosan ayaa diidi lahaa laakiin shacbigi waxay raaceen kaaba qabiil laadiiniye oo maasuuniya oo istishraaqi ay raaceen ninkii diiniga ahana laadiini maasuuni istishraaqi Soomaaliya ayaa dilay ninkii u qiran lahaa wadankana waa nimankaasa loogu talagalay oo disbashanka lagu sameeyay oo aan hadii la isku dayo 10 sano kale la soo aruuri karin marka layto waxaad ogaataan haddaan ilaahay nasri kala too bixin procedure-ka Soomaaliya lagu sii wadaahay in ay tahay in lagu magacaabo Soomaali weyn magac ahaan jiray xabashi weyn in lagu magacaabo in la soo wado waa inaad ogaataan